hayaanka nolosha ee loogu jiro nolol wanaagsan oo la isku halayn karo aadamuhu iskusi uma raadiyo. dadyo badan oo dunidan inagula nooli waxay rafaad iyo wadda adag u maraan sida ay u heli lahaayeen meel ay naftooda iyo ubadkoodaba ku aaminaan, sidoo kalena ay dhaqaale ka samaysan karaan. barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa socdaalka halista badan ee Maraykanka, balse marka hore waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirtid barnaamijkana noo laygaraysid si uu u gaaro dad badan. sanadadii u dambeeyay mowjado qaxoonti ah ayaa ku soo qulqulayay xadka koonfur galbeed ee Maraykanku la wadaago waddanka Mexico. qiyaas ahaanna tiro ka badan 200,000 oo qaxoonti ah oo Soomaali badanina ka mid tahay ayaa ka soo gudbay xuduudka koonfureed sanadkiina dhaafay ee 2022. intii uu maamulkii Donald Trump ka talinayay aqalka cad ee Maraykanka, waxaa jiray hindise uu rabay inuu gidaar dheer uga sameeyo xadka kala dhaxeeya Mexico. hase yeeshee Biden oo xilka uga dambeeyay ayaa taas meesha ka saaray, waxaana uu sheegay in markii uu horeysay muddo 20 sano ah xukuumaddiisu isu diyaarin doonto tiradii ugu badnayd ee qaxoonti ah oo ka soo gudubta xuduudda koonfureed ee waddankiisa. socdaalkan oo ah mid ay halistiisu badan tahay, waxaa barnaamijku inta uu socdo kugu tusi doonaa meelaha ugu khatarta badan ee ay sii maraan muhaajiriintu iyo gobollada ugu horreynba ay u gudbi karaan haddiiba ay ogolaanshiyo helaan. muhaajiriinta se ugu badan ee ka soo gudbay xuduudkani waxa ay badankoodu ka soo jeedaan koonfurta iyo bartamaha qaaradda Ameerika, gaar ahaana wadamada Mexico, Colombia iyo Haiti. sidoo kale waxaa iyana jira dadyow kale oo badan oo ka soo jeeda meelo ka baxsan qaaradda Ameerika sida dad Chinese ah, Russian, Turki, Afghanistan iyo Hindiba. haddaba muhaajiriintu si ay u gaaraan hadafkooda iyo bartilmaameedkooda, ugu horreyn waa inay ka gudbaan dhulka ugu halista badan inta safarkan lagu guda jiro ee lagu magacaabo Darien Gap ama Jungle-ka. Darien Gap juqraafi ahaan waxa uu dhacaa inta u dhaxaysa labada waddan ee Colombia iyo Panama. sidoo kale waa barta kala qaybisa koonfurta iyo waqooyiga qaaradda Ameerika. Darien Gap waa masaafo dhan 66 mayl ama 106 kiiloomitir ama se 4 dharaarood oo socod ah oo la lugaynayo meel kaymo ah iyo duur cidla ah, dhul qoyaan ah oo halis badan, buuro dhaadheer oo rafaad badan oo aanad marnaba ka heli doonin haba yaraate ee baahiyaha asaasiga ah ee bini'aadamka, sida meel aad daawo ka iibsatid haddiiba uu dhaawac ku soo gaaro, ama goob aad cunto ka iibsatid haddii ay sahaydu kaa dhammaato. sidoo kale waxaaba laga yaabaa in dhaawac ku soo gaaray dartii cid ku caawisa aad weydid. inta socodkan dhulka kaymo ah lagu jirana waxaa suurtagal ah inaad aragtid xubnaha dad dhintay oo meydkoodu uu dhulka waran yahay. sidoo kale waxaad arki kartaa dad waayeel ah iyo carruur jidkan maraya oo rafaadsan. isku soo wada duub oo marka la dhaafo halkan halista badan waxaa looga sii gudbayaa waa waddanka Panama, kadib hore ayaa loo sii dhaafayaa waxaana xigi doona waddanka Nicaragua, waana laga sii soconayaa ilaa laga gaarayo Guatemala oo xad dhuleed la wadaaga waddanka Mexico. kadib imaatinka Mexico waxaa aad u sahlanaanaya in la gaaro riyada ah rabbow maruun Maraykani gee, oo waxa keli ah oo kaa xigaya in lagu ogolaado inaad soo gudubtid. haddaba marka halkan la marayo waxaa fudud inay gudbaan dadka ka soo jeeda wadamada colaadaha iyo dhibaatooyinka kale ee nololeed ay aafeeyeen. sidoo kale haddii shaki la geliyo warbixinta hordhaca ah ee laga qorayo, waxa iyana qasab noqonaysa in dib lagugu celiyo waddanka Mexico. haddii se ogolaanshaad ka heshid laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee Maraykanka, waxaa laga yaabaa inaad ka soo gudubtid 4 gobol mid uun, waxaanay kala yihiin California, Arizona, New Mexico iyo Texas, oo dhammaantoodba hore uga soo mid ahaan jiray dhulweynaha Mexico. haddaba daawade, Maraykanka ayaa ah waddanka koowaad ee qaxoontiga ugu badan ku nool yahay caalamka oo dhan, waana hoyga in ka badan 45 milyan oo ruux oo qaxoonti ah, taasoo ka dhigan in 13% dadka Maraykanku yihiin dad qaxoonti ka soo jeeda.